السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wax ka badan 350 sano ka hor maanta waxaa dhashay ninkii ugu saameynta badnaa dunida. waa ninkii hore mariyay cilmiga fiisigiska laguna tilmaamo sixroolihii ugu dambeeyay iyo caalamkii ugu horeeyay. waa ninkii lahaa caqliyadii aliftay cuf isjiidadka, waana Isaac Newton. kusoo dhawo barnaamijka. Newton wuxuu dhashay 4 bishii koowaad 1663 waliba wadanka boqortooyada Ingiriiska. markii uu dhashay 3 bilood kadib waxaa dhintay aabihii. waxa uu ahaa wiil xajmigiisu weyn yahay. hooyadii waxay geysay dhakhtarka. waxaa lagu yiri ilmahan ma noolaan doono waqti badan, laakiin taasi been ayay noqotay. markay da'diisu ahayd 3 jir waxay hooyadii guursatay wasiir. waxay u guurtay gurigiisa. Isaaqna wuxuu la noolaa ayeeyadii. Isaaq wuxuu nacbaa ninka qabo hooyadii. wuxuu u tiriyay gabayo badan oo ku sheegaya in ay hooyadii ka raacday ninka. waxa uu ku biiriyay iskuulka Grantham kadib markuu la degay nin ay isku dhawaayeen oo beeraley ahaa, kana bartay in yaroo chemistry ah. wuxuu noqday arday dadaal badan, gaari guulo badan, cadeeyay arday ugu fiican iskuulka inuu yahay. sanadkii 18aad waxa uu ku biiray jaamacadda Cambridge. waxa uu dhigan jiray galinna waa uu ka shaqeyn jiray. waxa uu qaadan jiray lacag yar, jaamacadduna bilaash ayay u ahayd. ahmiyad weyn ayuu siiyay xisaabta. wuxuu bilaabay akhrinta xisaabaadka ay alifeen culimadii waaweynaa. waxa uu xilligaa wax ka qoray cuf isjiidadka, iftiinka, midabada iyo qaar kaloo badan. waxa uu joogay Cambridge 3 sano. waxa uu helay 4 sano oo bilaasha. sanad kadib markuu helay deeqda waxbarasho, da'diisu waxay ahayd 22 jir. waxa uu soo bandhigay Newton ikhtiraacadkii ugu horeeyay ee xisaabta ahaa. Newton waxa haleelay xanuunka dilaaga ah ee daacuunka. waa uu ka soo caafimaaday. waxbarashadiina waa uu sii waday ilaa uu ka qaatay shahaadada loo yaqaano master isagoo gaadhin da'da 27 jirka. waxa uu qaban jiray Newton bandhigyo sanadeed ah si uu dadka u tuso waxyaabo cusub, waxaana qayb ka ahaa telescope-kii uu sameeyay sanad ka hor xilliga. waana midka lagu tilmaamo inuu yahay bilowgii guulihiisii waaweynaa ee cilmiyeed. Isaac Newton wuxuu bilaabay daraasadiinta fikradda jaadibiyadda iyo sharxidda dhaqdhaqaaqa qoraxda iyo dayaxa. waxa uu sameeyay hal buug oo uga magac dhigay mabaadi'da xisaabaadka falsafada dabiiciga. waana buugga ugu saameynta badan ee fiisigiska iyo culumta kala duwan ee xilliga. 3 aragtiyood ayuu kaga hadlayaa buuggiisa. ta koobaad, sharaxa meerayaasha sida uu wareega dayaxu iyo cuf isjiidadka. waxa ugu weyn ee lagu xasuusto Isaac Newton waa inuu ikhtiraacay cuf isjiidadka. sanadihii ugu dambeeyay Isaac Newton waxa uu ku sugnaa Cambridge, duleedka magaalada Manchester. waxa uu dhintay 1747 waliba isagoo single ah ama doob ah. wuxuu qaatay 2 abaalmarin. ta koobaad FRS 1672, ta labaad Knight Bachelor 1705. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.